ciidamo hor loo ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa gabaldhici maanta ka caraabay magaalada Muqdisho iyagoona u jihaystay dhinaca deegaanada Hirshabelle iyo Galmudug si ay halkaas uga xoreeyaan kooxda maleeshiyada shabaab oo waqtigooda sii dhamaanayo. ciidankan ayaa waxaa hogaaminayay xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul, xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ay ka mid yihiin Jenaraal Cali Cosoble Caari Gacmo Dule, Jenaraal Axmed Maxamed Maxamuud Tireedisho, Jenaraal Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Mas'uuliyiintan ayaa la dardaarmay ciidanka cusub ay hogaaminayaan ee ku biiraya dagaalka ka dhanka ah cadowga ee looga xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka Hirshabelle iyo Galmudug. Jenaraal Cali Cosoble Caari Gacmo Dule ayaa sheegay in iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha ee ka dhanka ah shabaab la qaadi doono weerar lagu xoreynayo kooxdaasi deegaanada ay ku sugan yihiin. Bismillah, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. xildhibaanada sharafta leh, saraakiisha, gabdhaha sharafta badan, ciidamada qalabka sida, saxaafadda, dhammaan dadka akhyaarta ah ee meesha taagan waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaan rabaa warka ujeedadiisa waa la tilmaamay, xildhibaanada ka hadlay. cid kasta oo Soomaaliyana maantay waxay ka dheregsan tahay xaaladda dalkan ka jirta, in cadowga al-shabaab laga sifeeyo dalka ayay tahay ujeedada ugu horeysa, taasoo la tix raacayo iclaamkii oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo iclaamiyay in cadowga al-shabaab dalka laga sifeeyo. xildhibaan Cabdirasaaq Xusul ayaa sheegay in gulufkan uu yahay kii ugu dambeeyay ee kooxda shabaab looga saari lahaa deegaanada ay haatan ku sugan yihiin. runtii dagaalkaas madaxweynaha iclaamintiisa asigaa iska leh, isagaa ulul amrigii dalka ah, dalka nabad isagaa u qaadi kara, dagaalna isagaa u iclaamin kara. mar hadduu madaxweynihii dagaalka iclaamiyana wuxuu noqonayaa dagaalku mid waajib ku ah qof kasta, hadday tahay saraakiisha, hadday tahay siyaasiyiinta, hadday tahay dhallinyarada, bulshada qaybaheeda kala duwan, culamaa udiinka. waxaan rabnaa marka dagaalkaas isaga ah oo deegaano badan oo Soomaaliyeed maanta ka socda oo maamul goboleedyada ka socda in lagu wada biiro, qof walba doorka uu ka leeyahay uu ka qaato. culamaa udiinka ay doorka diinta ka qaataan iyo wacyigelinta, inay ummadda u sheegaan in nimankaasi waxa ay sheegaan aysan diin ahayn, bal diinta ay dhib ku tahay oo hadmu diin bismi diin ay tahay, in diinta la burburiyo laguna burburiyo magaca oo diinta. dhankiisa xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi ayaa tilmaamay inuu soo gabagaboobay u diyaargarowgii ugu dambeeyay ee lagu xoreynayo kooxda shabaab deegaanada ay haatan ku sugan yihiin. maalmahan la soo dhaafay waa la socotaan in loo diyaargaroobayo howlgal ka dhan ah kooxaha argixisada ah oo maantadana ugu dambeysay cadowga ay ku jabeen gobolka Hiiraan oo maalmahan ama bilahan uu howlgalku ka socday. waxaan rabnaa in howlgalkan uu ka bilowdo si lamida gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellada Dhexe, oo aan ogtihiin in howlgal ballaaran oo maalmihii la soo dhaafay in inta badan dadkii bulshadii inay ku kaceen kooxaha argixisada ah, hogaankooda inay horkacaan. waxaan rabnaa inaan u sheegno in caawa aan diyaar u nahay inaan howlgalka inta nooga aadan inaan qaybteena aan qaadanno. Maxamed Cabdullaahi Roble, warbaahinta qaranka, Muqdisho.